أجس حلبان محمود ورسمة جامع وقتل سنة قولها الديجانكا دقمد عرقابة قبل كالسناق أيام مدحونها جمهورية الصومال المدني أحمد محمد سيلانيو ودقريت مدحونه وقوم قعابي ويصيركو حقين كعصبة وساردة قاشان دقة الصومالي لان ويصيركو حقين كعصبة وساردة قاشان دقة محمود ورسمة جامع أيا كم هنقي حلكة قرن مدحونها جمهورية الصومال لان وإقمضي waxaan kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo xalayna madaxweynuhu digreeto soo saaray wuxuu iigmaday inaan noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xilka isaga waan qaatay waan ku qancay waxaan ku qaabilayaa dareen wadaninimo oo ay ku dheehan tahay inuu madaxweynuhu igu dhiirigelinayo inaan qarankayga u shaqeeyo aniguna taas ayaan diyaar u ahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ku hambalyeynaya waana ku bogaadinaya xilka isaga ee uu gartay magacaabista wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ayaa tallaabo dhiirigelina u noqonaysa dhalinyarada reer Soomaaliland maadaama uu yahay xubinta ugu yar ee golaha wasiirada ku jirta guud ahaan dadka Soomaaliland ku nool 3 meelood marka laga dhigo 2 meelood iyo badh dhalinyaro ciidamada difaaca qarankuna dhalinyaro u badan yihiin maadaama ay dhalinyaro yihiin dadka qarankan difaacaya cadawga ka jira diyaarkana oo ay mar walba u heelan in dalkooda ay difaacdaan wasaaraddanina ay tahay wasaaradii waraabinaysay in qarankan aan xuduudihiisa ciidina ku soo gafin cadawguna aanu ku soo talanbiin waxay muujinaysaa in madaxweynuhu oo mas'uulka maadaama ay mas'uulka dhalinyarada u magacaabay ay dhiirigelinayso in dhalinyaradu xilka inta leeg ay qarankooda u qaban karaan waxayna cadeynaysaa in madaxweynuhu doorkii dhalinyarada oo ay dalkan ku lahayd xukuumaddiisa oo gadhowdeynka ka yahay uu doorkii ugu mudnaa ka siiyay horena madaxweynuhu digreetooyin hore oo barasaabale agaasimayaal guud leh gudoomiyaha maxkamadda sare oo dhalinyaro ayuu hore u magacaabay maantana maadaama golaha wasiirada aan noqonay mas'uulkii ugu daadayaraa ee madaxweynuhu ku soo daro waxay muujinaysaa in madaxweynuhu uu qiimeeyay qarannimadu iyo dhalinyaradu qiimaha ay isku leeyihiin